ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa sheegay inaanay Itoobiya ku duuli doonin dal ay jaar yihiin kadib markii hadal dhawaan ka soo baxay uu khalkhal ka abuuray gobolka Geeska Afrika isagoo ka hadlayay maalinta ciidamada Itoobiya kana hadlayay fagaaraha Maskal Square oo ku yaala bartamaha Addis Ababa. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in Itoobiya aanay weligeed ku soo duuli doonin dal ka mid ah dalalka ay jaarka yihiin iyo waddan kale toona. ciidankeenu weligood weerar may qaadin imikana weerar qaadi maayaan ayuu yiri Abiy. waxa uu sheegay inay cabsi abuureen kadib markii uu sheegay inuu dhawaan ku nuuxnuuxsaday wada hadallada arrimaha qaar. ma jirto in wax kasta oo ay Itoobiya rabto ay ku gaadho duulaan ayuu yiri Abiy. waxa uu yiri waxaan si adag idinku xaqiijinayaa inaanan dabada ka riixaynin inaan xoog wax uga helno walaalaheen. hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa yimi kadib markii dhawaan uu sheegay in helitaanka bad uu helo dalkiisu ay lagama maarmaan u tahay